ciidamada ammaanka magaalada Dhuusamareeb ee xarunta maamulka Galmudug ayaa gacanta ku soo dhigay dad toddobaadkii hore deegaan Dhuusamareeb u dhow ku laayay ku dhawaad 4 qof kana soo jeeda maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya. madaxa xukuumadda Galmudug Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan warbaahintan kula hadlay Dhuusamareeb habeenkii xalay ahaa ayaa waxa uu ka hadlay labadii fal ay ka kala dhacay magaalooyinka Dhuusamareeb iyo Gaalkacyo xarumana u kala ah gobolada Galgaduud iyo Mudug dad shacab xoogsata ahaana lagu dhibaateeyay deegaan ahaan ka soo jeeda Koonfur Galbeed. Sheekh Shaakir ayaa tacsi u diray eheladii ay ka baxeen dadkaasi gacmaha ka xaq daran ay ku dileen magaalooyinka Gaalkacyo iyo bariga magaalada Dhuusamareeb. madaxa xukuumadda Galmudug ayaa sidoo kale sheegay laamaha ammaanka Galmudug ay gacanta ku soo dhigeen dadkii ka dambeeyay 4 qof ee lagu dilay duleedka magaalada Dhuusamareeb gaar ahaan deegaanka Dhinwariso 18 kiiloomitir u jira magaalada Dhuusamareeb. dhinaca kale waxa uu sheegay madaxa xukuumadda Galmudug Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan in lagu raad joogo isla dadkii ka dambeeyay falkii Gaalkacyo ka dhacay maalmo ka hor qaar kamid ahna gacanta lagu hayo. waa kan Sheekh Shaakir oo arinta ka hadlaya. arintaasi inay ahayd arin aad iyo aad u xanuun badan laba dhacdo oo dhacday oo midna ay ka dhacday dhulka xiga bari magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug midna ay ka dhacday magaalada Gaalkacyo. labada dhacdaba waxay ahaayeen laba dhacdo ku dhacday dad walaalo ah ee Soomaali ah gobolkood. arin marka waxay ahayd laga xumaado arin aan horay u dhici jirin oo aad iyo aad u liidata. waxaan aad iyo aad la wadaagayaa ee bulshada Soomaaliyeed ee arinta ka xanuunsatay caawa oo taariikhdu tahay 16 bisha 6 2019 waxa gacanta lagu soo dhigay gacan ku dhiiglayaalkii dilay 4tii hore oo ku dilay duleedka magaalada caasimadda Galmudug ee Dhuusamareeb. ciidamada amniga ee Galmudug ayaa gacanta ku soo dhigay. waxaan rajaynaynaa biidnillaahi kariim dhibaatadii ay geysteen oo ay ummadda Soomaaliyeed oo dhan u geysteen iyo dhibkii gaar ahaaneed oo marxuumiintii ahalkoodii iyo qaraabadoodii u geysteen wixii ay ka mutaystaan shariicada islaamka in la geeyo. taasna waa rajaynaynaa biidnillaahi kariim. waxa kale oo aad iyo aad lagu daba jiraa oo howlgalkeedii u socda dhacdadii ka dhacda Gaalkacyo. ciidamada amniga culimaa u diinka cuqaasha dhalinyarada hooyooyinka looma kala harin xanuunkaas ay ka xanuunsadeen daraad inay raadinayaan dadkii wax geystay gobolkoodna aan rajaynayno in gacanta lagu dhigay sida aan ka helayno ila xog ogaal ah. kuwa kalena gacanta lagu dhigi doono. waxaan rajaynaynaa in iyaduna guul ku soo dhamaato. isku darka dadka lagu dilay Gaalkacyo iyo Dhuusamareeb ayaa gaaraya 13 qof oo shacab ah iyo 2 qof oo dhaawac ah intooda badan ka soo jeedaan maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya halka dadka qaarna ay ka soo jeedaan maamulka Hirshabelle. geesta kale mar uu hadlay madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Laftigaren waxa uu ka codsaday madaxda sare ee Galmudug odayaasha dhaqanka inay gacanta ku soo dhigaan dambiilayaashii ka dambeeyay dilwadareedkii Gaalkacyo ka dhacay habeenkii Jimcaha iyo kii kan ka horeeyay ee ka dhacay duleedka magaalada Dhuusamareeb isagoona shacabka Koonfur Galbeed uga digay in ay dhibaateeyaan dadka ka soo jeeda Galmudug ee ku nool gobolada Baay iyo Bakool.